السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وناكسن دمان أخيارته يدا شرفته يقيمها يقدر تمدونه وتلفزيون كعالمي جاء عروق تيفي يولي ببرنامجكي عويس كقرآن كي عروق تيفي على واحد الناس السعودية يعني جو سيد علي إبراهيم عبد الله هي عاو برنامجك واحد ينوقف مرتيا الشيخ حمسي محمد علي وكم ده حفاظة قبل كمرود الجه قالهن عاصمة مقالة هرقيسة الشيخ حمسي كسو دو تلفزيون كعروق تيفي. أهلا وسهلا حياك الله ندوح. الشيخ حمسين كان ويديمها وقدمين وحن جعلها هنا ذلك يددوينها داودياشينا أدنى مقلسيسو آيات كقرآن كريم افتتاحنا ونقوم دونا برنامج كينا عويس كقرآن يعرف تيفي. هاي إن شاء الله تعالى إلى ما يسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. انت هذا الكلام مع الله استنى الشيخ حمسي هو اخرياي ودينت هو رئيس الشيخ حمسي waxaad nooga warantaa bal bilowgaagii ama bilowgaagii quraanka adigoo soo koobaya iyo taariikhdaadii dhalashada inta adigoo isku soo koobaya. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فتمركه كوباد وحن إله سبحانه وتعالى مهنقيا كدبنا وحن مهنقيا walaalkii Sayd Ali Ibrahim oo igu martiqaaday barnaamijkan. haddaan ka bilaabo magacaygu waa Xamse Maxamed Cali Cumar. waxaan ku dhashay dowladda Imaaraat Alcarabiya Almutaxida ama Sultanka Imaaraadka Carabta 1993 waxbarashadeedii dugsiga hoose ayaan ku soo qaatay. kadibna 2004 Hargeysa u soo wareegay. halkaasna waxbarashada dugsiga dhexe bilowgii dugsiga dhexe iyo dugsigii sare halkan aan ka qaaday. kadibna jaamacada Golis baan galay. laga yaabo noqoto mufaaji'a liljamiic. takhasuska shariicadaha baan galay. waxaan galay takhasuska engineerinka hase yeeshee maan dhamaysan. alxamdulilah rabbil caalamiin quraanka waxaan xifdiyey anigoo 19 jira. waan xasuustaa maalinkii aan dhameeyey waxay ahayd ama bishaan dhameeyey haddaan si guud u sheego bir Ramadaan bay ahayd 1433 ku beegnayd bishii 8aad 2012 بعد صلاة العصر. صلاة العصر كدب بان dhameeyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadnaqayaa. علومت الشريعة أنا وشيخ بدل ما كقاته معهد الإمام ابن باز رحمه الله دفعتي سكوبات مركي الفريل وكن السديد دفعتي سكوبات بانها
hadday noqoto xagga qur-aanka maasha allah tabaaraka allah ilaahay wuxuu igu manaystay inaan xifdiyo kadibna mashaayikh baan ku dul akhriyey soomaali iyo carabba waxaa sheekha ugu horeeyaan ka qaatay qur-aanka nin hindiya buu ahaa oo la odhan jiray sheekh fayd araxmaan raxmat ullaahi caleyh hadduu nool yahayna ilaahay subxana wa tacaala ka abaalmariyo waxaan ku dul akhriyey jisaska ugu dambeeya jis came 1979 kadibna waxaan usoo wareegay hargeysa sheekh la odhan jiray sheekh cabdilqaadir abu kurayb raximahullah sheekhii ugu taahiirka badnaa ama raadinta igaga tegay ama xaggaa inaan u jeesto qur-aankii qiraa'aadka fadiilat sheekh maxamed yuusuf maxamed xamaamaale oo ah maamulaha madaaris daar tawfiiq halkana waan ka salaamayaa min hada almimbar waxaan ku dul akhriyey riwaayat xafs iyo usuul alqiraa'aat asabc shaatibiyadana waa ka dhigtay qiraa'aadka in kamidana waan ku dul akhriyey jazahu allahu khayran كذلك أن كدول أخريي فضيلة الشيخ حسين نور قليل وشيخ قراء بورما فضيلة الشيخ محمود حسن نوني ختم كامل كمدر أخري لكن إن كامل القرآن كان كدول أخريي حضنا وحن بلا بين كدول أخريي فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم عبد الغفار الطاهري الأفغاني ويمكن دقن في دولة الكويت ولي نومو dhamaystiri khatmadii laakiin insha Allah waan dhamaystiri doonaa باذن الله sheekh Xuseen taadina ku soo noqono quraanka markanaad sheekha hindiga ku dul akhriday xageed ku sugnay imaaraadkan ku sugnaa oo gurigaan deganayn magaalada Abu Dhabi oo markaa caasimadda beledka ah masjid noo dhawaan oo masjid Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ayuu imaamna ka ahaa مدرسنا كأوح كدقي جري أولادي سنوي ولا لقي جرتي رحمة الله عليه واجا سيقول دميسي ما كواحد لقيت شو عشان إلى 20 سنة هدو نولي هي لها بركة هدو الثاني لها سبحانه وتعالى هون حرس قد كان هون نوره رتر الشديد بوها واجا ما قرنا كدقي جرنا نو ناس إذا مع المهن يعني سايرادا بدن يمكن يجري مركا والبال حرس كل يجري واجي هره وشنا way wanaagsantahay laakiin waxa leedahay xad oo ushan dad badan bin nacsiis quraanka inay bartaan ama cilmiga diineed inay ka disabay saw noqotay kadibna sheekhaas ba kadib baan u wareegay iskuulka quraanka runtii waan jeclaa dhageysigiisa waliba aad sheekh man aad u dhageysan jiray raxmatullaahi calayh الشيخ علي عبد الله جابر oo tukun jiray xaramka marka isteetanaadkii aad baan dhageysan jiray magaciisa runtiina ma aqoon وبرجع هذا حلو اللي يصير أئمة الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس الشيخ سعود الشريم وحكوا صور الشيخ علي الحذيفي في المدينة الشيخ مشايخ ديار المصريين الشيخ عبد الباسط عبد الصمد محمد صديق المنشاوي هل عظام قدر يا أخي سنة قرآن وقو حفظي ورتمرك هوراء أنو كما سوتشي ذو أما كما سوتشي ذو قويس دينيد قويس ودادا وانت بدأتك وحي آميسي قوفك قرآن كبرتها إنه لازم أما واجب تهين أبيه وذاتي هاي ويدينا شيخت هاي مي أنا قابل هاي وأنا شقيستا أو ما تقانا كل شقين شري عقفيضة سعودي أريبيا كدبنا إمارات كوريجي حمد علي عمر يهويدي قال سمسم عمر حسن عثمان وبعد فضل الله لا في اللي اسمه كلمة إلى هل كان سوق رياض صابو هاي هل كان وانك السلام يتي فيه كان لفتي ذا waxay ugu dhalatay in quraanka xifdiyo 2007 habeenada kamida bir Ramadaan bay ahayd masjid weyn masjid magaalada Hargeysa ku tukanay sheekha ku dul akhriye ama tukinay fi ذاك اليوم وندعي الى الان haduu dhintana Allah u naxariisto wuxuu akhriye min awaakhir suurati Saad suuratu Saad dhamaadkeedii uu akhriye aad nooc macna runtii wuxuu تقليديني أمو عدكيس كقديجا عدك الشيخ علي جابر واحد ولا وانا كاتبته كتها إلا ودميرك عدي هذانا أنتي وقلت لقى ترى كده من الشيخ على صوب قال مالك كاسن قاصين القرآن كحفظيه أي يرين خير الله السيو وحن السر مالك هبينك
سنية القرآن وأخري يعني يقرأ من القلب marka waxa siniyad loo akhriyay sidii marka aad mataqaana aad carabka ka akhriso isku taasiir ama isku raadin maaha naam sheekh amse baad sheegtay inaad quraanka soo dhigatay oo meelo badan ka soo dhigatay marka ma dhowr sheekh oo kala kaanad ka dhigatay mise hal sheekh oo hindi ahaan ba ku dhameeyay la imu dhamay isagu inta ugu horeysa bilowga quraanku uu dhigay kadibna waan ka wareegnay madrasadiisiyo mataqaana waxaan ku mashquulay waxbarashadii nidaamiga ahayd ama waxbarashadii akaademiga ahayd baan ku mashquulnay laakiin taa quraanka waa dhageysan jiray aadna waan u jeclaa siibahaana sheekh cali jaabir raximahullah sheekh cali jaabirna wuxuu tukin jiray xaramka isteetinaadkii waxaan u dhintay 2005 raxmatullaahi calayhi raxmatan waana isagaa sabab ah in quraankana jeclaaday kadibna aan xifdiyo kadibna markaan hargeysa yimi baan mashaayikh kala duwan ku dul akhriyay ha ugu dambeeyay sheekh maxamed yuusuf maxamed jazaahu allahu khayran waxaan noo dhigi jiray marka laga yimaado quraanka tajwiidka wuxuu noo dhigi jiray usul alqiraa'at ama matn ash-shaatibiya dadka ku shaqala qiraa'aadku way garanayaan waa kitaabka cumdada ama udub dhaxaadka waa cilmigan li abi القاسم بن فره بن خلف الرعيني الشاطبي الأندلسي ثم المصري نزيل الإسكندرية رحمه الله كدمنا السديبان كوهانقان يعني ولله الحمد والمنة نعم مركا شيخا دور شيخ باد كلا قادتي كدب غورماد قرانka khatimka aad khatintay oo aad xifdiday 2012 sir rasmi ah hargeysan ku xifdiyay hay sheekh xamsi markay inta ka nimaadno caqabad buu kula soo dirsin xilligaad quraanka dhigan jirtay oo waxyaabo caqabad oo quraanka u istaaga ama quraanka kugu adkaado waxyaabo kula soo dirsin caqabad illa had يعني واحد حسوس سمك أحياء غريبة يمكن اللعبة لكن واحد حسوس كان مراي صورة الشورى كان مراي يعني ملا لبا صفحة صورة ده حنكون شري ملا لبا تضباط قيبي كرواي صورة الشورى أنا وأشنبه قيبي كيدوا وانا حسوس أنا كوا كبحة وانقرواي هذا أنا مالك كلا وانقر لبا تضباط يقول نقطة آخر كيبا وحن مالبا هي صورة فصلت لبضبا مالبا سوقت عجلد واقي عجلدي كاسيت كلورين شريس لحنا كيس قاش كتير كان كو غرمايان لحنا كيس قاش هذا وحو تاغي هي بلاي ستور كما ابلكيشن اللي لا سو دغ بلاي ستور كا ايو كدغن yahay imaka سان لا سو دغ شريط اما عجلد لها الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله أنا سجى كل عين شر مركز تاني يسين شري وليبا الصورة ده بالذات صورة فصلت صورة الشورى إلى مركز دنبان أخري الحمد لله الحفدي صورة ده كجد بي عقبات كلنا ويتميو رمتي واحد بريقة قرآن كوحي نعسي وشا مع المركز نوري شر واجا صودي أذكر الله ما هكل الحاجة طبعي كعنتي ساكل الله يضو يعني هلكو سحك من أنا قلاها لله واجس أي قول منه ما ركتي نقول جوابتي سؤال به مرة تاسع كنتين مدة مغنى القرآن لكن الحمد لله مركان عقلي سنيبا كسون قني قرآن ولله الحمد. الشيخ حمسي مجران تخصصات كله والله ذي مكان القرآن كله جاي معه. تخصصات كله تخصصات شرعية مياه. تمام. ولا لو هرتا الحمد لله رب العالمين كلهم الشريعة هذا لجوذا قالوا. لبا تخصص بان أوران كراو يعني آد بني يعني أوران كراوان أدوهي وتخصص الحديث يو تخصص التاريخ لبا علم بان آد بان أتحكي ليسيب عن حديثك حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومركا لغاية ما دا قرانك وإيش الله بعض لغا قاطو نصوص الشريعة ذا رنتينا وانا علومta imika aad iyo aad kama aragtay aan loo dhigano dadkii yaqaan ay yar yihiin qalaa igu culumta kale labada cilmi baan takhasusaadkan naam sheekhu waxay sababta maadaama aad quraanka takhasus u leedahay ahadiiska laftiisa aad takhasusad meel fiican ka gaadhay maadaama aad aragto inay qolo kasta ama heesiyo kale ama waxyaabii maxay ciyaariyo kale xayeysiinayo waxay sababta aad uga soo muuqan weydo maadaama aad takhasus u leedahay cilmiga quraanka
waxay sababtaa kusoo muuqday social media ama TV-yada ee dadka ula wadaagi weyday cilmigadan hayso ugu gudbin weyday wallahi waa su'aal muhiim ah horta daawadayaashu waxaan ogeysiinaa inuu sideedaba dadka maaragtay warbaahinta ka soo baxa ma bihi in iska qarsoon baanay magaaladiisa ku jira marka hore nin xisho badan baan ahaayo maaragtay intaan julasada ama dadka la fadhiyay mooyaan u faa'iideeyay mooyaan maalina wallahi kuma soo dhicin inaan ta kaamira hor fadhiisto aan dadka la hadlo hase yeeshee dad badan oo mataqaan akhyaara ayaa igu boorisay inaan guda galo maadaama dadkii lagu mashquulay heese iyo kubad iyo filmaan iyo siyaasad iyo quran dee dhankaaga ka qayb qaado xagga khayrka waxaad arkaysaa dhalinyaro fara badan saacado u fadhiya si kubad u daawadaan saacado waxay u fadhiyaan si ay u dhageystaan nin dhurmaya oo been dhurayo oo mataqaana dadka been ka dharginaya maanta dadku waad arkaysaa way u fadhiyaan sida mixnada in naxliga iyo qabyaalad ay mataqaana 5 saacadood 6 saacadood 7 saacadood u fadhiyaan markaaga waa inaad ka qayb qaadato fil khayr oo mataqaana aad ka qayb gasho kaalintaada aad buuxiso barnaamijkan maadaama ka tusaale nagu filan ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka barin ilaahay ka dhigo waraysi meel walba gaara biidn illaah oo ikhlaaska ilaahay nagu arsaaqo iyo qabuulka sheekh xamse barnaamijku si gabagaba ah su'aasha ugu dambaysa naam aan ku weydiin doono waxaan leeyahay ma aan ku weydiin doonaa naam dadweynaha jecel quraanka iyo dadka kale ee inay bartaan jecel maxaad kula talin lahayd ee daawadayaasha waxaan kula talin lahaa horta talooyin badan laakiin waxay ku soo ururaysaa qodobka koowaad marka hore horta ikhlaas la kaalay ilaahay dartii ha ka noqdo oo marka labaadna cidaad ku dul akhriyayso inaad iska eegtaa nin kastoo kula quraan baa dhiga ma dhigi karo quraan waana ku dul akhridaa mutqin qof quraanka inay yaqaan xuruuftiisa sugaya iyo ahkaamtiisa waliba haddaad ku biirsato nin aad istabiicad fahmaysaan oo mataqaanaa kugu mataqaana ku kaalin gelin karaa way quraadana maqalno rag baa jiray cilmigana u dhigi jiray kaalin geliyay haddaad kaana hesho kaba sii wanaagsan hase laakiin dad helo nin ka saxay ahkaamta haddaad hesho ta khayr baad ku suganta ta saddexaad waxda ogsoonaata quraanka cidi kaama xigto la dheera ka xiga wala la gaaba ka xiga wala arab ka xiga wala ajami ka xiga وللمسلمين جميعا لما عدوا البا عدي كما حكتو دركن إلهي سبحانه وتعالى كسي كفايديسو waxaa kala ku darsataa dhageysiga badi lilmutqiniin dadka quraanka mutqiniinta si wanaagsan quraanka u akhriyay sida wanaagsan maaragtay ugu looqeynaya aayaat arrahmaan sheekh su'aal kale si raacinaya oo ah sidee ayaa quraanka loo xifdiyi karaa waana gunaanadka barnaamijka naam adina ugu soo gabagabayso intaan horta gudagelin qaabka quraanka loo xifdiyo waxaan jeclaystay inaan u sheego dadweynaha quraadii ta'ثيرkayga tagtay anoo dul maraya ku dheeraamaan akhi quraadii ta'ثيرkayga tagtay ama kuwa dhageysigooda aad ugu badan yihiin marka koobada Sheekh Ali Jaabir rahimahullah Muhammad Ayub الشيخ محمود خليل الحصري الشيخ نبيل ابن عبد الرحيم الرفاعي الشيخ أحمد خليل شاهين محمود عبد الحكم الشيخ عمر القزابري الشيخ عبد الكبير الحديدي الشيخ عيون الكوشي كأوضا بيان إمك آد كمارتي قراءة سؤال وهل وحوير الشيخ نورين محمد صديق رحمه الله هذا هذا نصر نقول قاب قراءة الله حفظي قاب الله حفظي وأنواع أرتدتك اسكو حفظنا ماها اسكو قادنا ماها اسكو أودا يوحكو حفظي أنا ماله لكن واقعي واحد شرح حل اللي حفظيه يقوب لغو حفظيه يحد لغو حفظيه ينتلق بالحفظيات إن لك على سارة ونكس نروح كو حفظية دق إننا ما كان الله وسط حشر لغو عليكو حفظية مننا طبعا شري لا لغو عليه ما حفظيه horta marka hore intaad adus eeg qaabka ama xadigaad qaybi karto ma page-ka barkiisa qaybi kartaa ma safxad dhanbaad qaybi kartaa ma laba bog baad qaybi kartaa adus ogow adaa isog anta adra binafsik intaad xifdiisa ku celi ugu yaraan 20 jeer
goob aad ku xifdisan raadiyo goobta ugu wanaagsan oo masjidka culimadu ay sheegeen marka doonaysan quraanka xifdido waxaad ku dadaashaa goob buuq ka fog لأنه أجمع للقلب واي قلبigaaga fikirkaaga wuxuu ku ururiyo waxaad xifdiis qaabka kale waxaad ku dadaasho waxaad jirtaa cuntooyin ama wax la cuno ka qayb gelinaysan xifdiga inaad xoojiso waxa ugu muhiimsan waxyaaba ka kaalmeyn xifdiga waxa weeyaan adducaa inaad ilaahay barido inaad ka fogaado macaasida iyo cidii inaad ka fogaado dadka dadka niyada ka dilaya ama niyada ka jibinaya kuwa ka fogow waxa kala ku darsata ducaa alwaalidayn ilaahay kugu simo inaad noqoto min xamalat alqur'aan waalidkaagana ka ducayso kii joogaba haddii labadooda joogana kaba sii wanaagsan inta kadib markaad xifdido muraajacada ha ka tegin وتقانا كده مك مراجعة وضوء بإذن الله وكوسكم يا قرآنك بإذن الله حفظ قنوة وطرق وكتبنا وكقرآن علماء كتابك وقوع عجيب سنة وأنو آدي ينفع يوحوها كتابك قريب فضيلة الشيخ الدكتور يحيى بن عبد الرزاق الغوثاني حفظه الله وجزاه خيرا كتابك لا كيف تحفظ القرآن الكريم شيخ سوريا وين ومدينة حكري جريمك هذا وحشوها اسطنبول في تركيا وحنا الله سبحانه وتعالى كبر إلهي نوارزق حفظ القرآن والعمل به والدعوة إليه وأن يرفعنا به نعم قدرنت يا قيمها مضرو برنامجكي عويسك القرآن يا عرب تي في حينو قد هي أمين سوق بجبيننا هلكا برنامج لم يدا ينتن كل من دونه وانيو الشيخ حمزة يبهذا نقدو بس يا عرب تي في لما حنلاقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آيات قرآن الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.